الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ولا ليال هل كان كليب كان ير وحن ربا إن كجاه الله أرنتا وحوي عالم كوين ما أنت وحوي دحدينا الوجي تشيدي الشيخ محمد إسماعيل runtii waa nin waxa weeye bulshada kaalmo fara badan ugu jira ayaamahan u dambeeyayna waxa weeye xaaladiisa iyo cabashadii markii uu la hadlay uu soo gudbiyay iyo waxa weeye xarig ka dambeeyay oo waxa weeye lagu la kacayba waxa weeye way soo cusboonaadeen oo waxa weeye waa arrimo jira marka sheekhu waxa weeye waa sheekh Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dhowray oo waxa weeye afgaaban oo runtii waxa weeye cidna aan ku dhicin arrimo siyaasadeed waxa weeye aan gelin oo aan ka hadlin runtii waa nin waxa weeye bulshada ugu jira kaalmo aad iyo aad waxa weeye u muhiim ah oo runtii maanta aan isleeyahay nin sheekh oo ugu jira ummadda kaalinta ugu jira aad buu waxa weeye waa dadka aadka u yar ee waxa weeye Soomaalida laga dhaxlo weeyaan runtii sheekhu waa sheekh waxa weeye dadka daweeya oo waxa weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa ku daweeya dawo dheeraadka waxa weeye ku daweeya iyo dhaqamadeeni waxa weeye maaragtay hore runtii waa nin caalim ah oo waxa weeye mufassira oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa ummadda u fasira oo waxa weeye masaajidada u fadhiista waa nin waxa weeye muslixa oo ka shaqeeya waxa weeye islaaxa waxa weeye dadka isku dhacay ee waxa weeye isqabta ee waxa weeye dagaaladu ay dhaxmareen runtii bilii u dambeeyay iyo sanadii u dambeeyayba waxa aad ugu hawlanaa inuu waxa weeye maaragtay dadka heshiisiyo oo wanaag waxa weeye u dhax dhigo isagoo waxa weeye maaragtay karaamaadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay iyo jacaylka ay bulshadu ay jeceshahay isagoo ka faa'iideysanaya ayuu runtii waxa weeye wanaaga u dhax dhigay bulshada runtii waxa weeye kalimaad kooban baan halkan ka soo jeedinayaa kelmad waxaan u soo jeedinayaa dadka shacabka ah ee bulshada waxa weeye qaaliga ah ee dheemanka ah ee waxa weeye maaragtay reer Somaliland runtii aan jeclayn waxa weeye dulmiga iyo waxa weeye maaragtay xumaanta inay isku garab siiyaan aan jeclayn ayaan halkan kalimaad kooban marka hore uga jeedinaya bulshada waxaan leeyahay war culimadiina waxa weeye waa ina ilaashataan waa in waxa weeye maaragtay xumaanta lagu la kacayo iyo waxa weeye xariga iyo dhibka waxa weeye loo geysanayo waxyaabaha milga xumaha ah ee aanay runtii mutaysanin ee waxa weeye aanay inaga geyin in waxa weeye maaragtay ka dhiidhidaan oo ka hadashaan oo sheekha waxa weeye runtii idinka u tola kuwii uu daweynayay baa tihiin kuwii uu diinta u xambaarsanay u soo gudbinayay baa tihiin kuwii uu shalay waxa weeye heshiisiinay markuu dabada joogay baa tihiin marka runtii bulshada waxaan leeyahay sheekha waa in loo hagar baxo oo arintiisa waxa weeye laga hadlo oo waxa weeye si maaragtay wanaagsan looga hadlo oo aad garab siisaan maanta waxa weeye runtii ayuu garab idinka baahan yahay in waxa weeye garab siisaan halna waxa weeye waxaan leeyahay waxa weeye maaragtay culimada oo runtii waxa weeye maanta booskiisa kale waxa weeye taagan nin kasto waxa weeye caalima oo bulshada sheekhu uu maaragtay rukniga iyo maaragtay booska ugu jira runtii waxaan leenahay arintan waxa weeye wayna wada khusaysaa waynaynu waxa weeye hadaynu culimada nahay arintan waynaynu ka hadalnaa waa in waxa weeye maaragtay la saga hiiliyaa runtii waxa weeye maaragtay hadaan maanta laga hadal berito waxa weeye aniga iyo adiga ayaa waxa weeye inagu dhacaysa oo ina qabsanaysa culimada waxaan leeyahay waa inaydan raali ka noqonin in waxa weeye sida neefka waxa weeye seelada loo geeyay maalinba waxa weeye mid la jiido oo isagoo waxa weeye cumaamadiisii la soo wasakheeyay waxa weeye marba hadana banaanka loo soo daayo isagoo runtii aan wax weyn oo dhibaho marka taagan oo waxa weeye gacmaha kula jiro oo laga sheeganaya aanay waxa weeye runtii jirin culimada waxa weeye zaman kasta waa la soo xidhayay waa la dhibayay waxa weeye maaragtay culimo badan baa waxa weeye la soo dhigay oo la soo dhibay oo waxa weeye dib badan loo geystay imaam Ahmed ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala in badan baa waxa weeye la soo xidhay oo la soo dhibay runtii waxa lagu dhibayay lagu dhibaateynayay waa laba arimood waa imtixaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu imtixaamayo iyo waxa weeye xaqan ay xambaarsan yihiin waxa weeye cidii aan raali ka ahayn ku qanacsanayn oo waxa weeye doonaya inay iska xabisaan iyo waxa weeye maaragtay culimo badan baa runtii la soo dhibaateeyay oo diinta waxa weeye loo dhibay runtii diinta waa imtixaan weeye waa lagu imtixaamaya qofku waxa weeye shay uu sheegto waxa weeye inta iimaankiisu leegayba imtixaankiisuna waxa weeye laagaanaya intaana waxaan leeyahay culimada war waxa weeye maaragtay arrimaha aragtaan waxa weeye runtii culimadii marba mid lagu la kacayo
waa in waxa weeye laga hadlo oo ka hadashaan oo si nadiif ah waxa weeye uga hadashaan kelimada xaqa waxa weeye runtii waa la sheegaa oo waxa weeye sideeda loo soo gudbiyaa ilaahay ba subhanahu wa ta'ala waxa weeye inuu adoonsaday xaqa waxa weeye inaynu sheegno ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu kala maaragtay naga xarimay shayga loo yaqaano dulmiga oo waxa weeye maaragtay dhexdeedna la isku eego runtii ciqaab badan baa waxa weeye lagala kulmi karaa halna waxa weeye waxaan leeyahay xukuumadda iyo waxa weeye cidii runtii sheekha waxa weeye xidhay waxa weeye sheekhu waa qof bini aadama gaf waxa weeye waa yeelan karaa khaladna waxa weeye wuu ka dhici karaa runtii waxa weeye de sifo sharci waxa weeye waxaynu maaragtay runtii nahay dawlad waxa weeye maaragtay waxa inoo yaalade waxa weeye maaragtay waxyaabo la dejiyay oo runtii loogu talagalay in dadku lagu kala baxo oo la isku ilaaliyo runtii hadii kuwa waxa weeye la isku eegi waayo oo qofku waxa weeye xuquuqdiisa la ilaalin waayo runtii de waa wixii hore maaragtay looga dagaalamay ee bulshada waxa weeye maaragtay hore isaga kicisay baan leeyahay runtii culimadu waxa weeye xaq dhowr iyo ixtiraam iyo weyneyn ayaa waxa weeye ay leeyihiin runtii sheekha hadii wax loo haysto waxay ahayd in maaragtay loo yeero oo waxa weeye maaragtay de maxkamad waxa weeye loo furo oo halka waxa weeye wixii loo sheeganayo maaragtay dacwada de loo soo gudbiyo runtii may dhicin oo maanta waxa weeye maaragtay eheladiisi ba qaylinaysi caruurtiisi meel ku sugan yahay waxa weeye ma garanayno dhul badan baanu ka raadinay bay leeyihiin oo ma garanayno marka runtii dawladana waxaan leeyahay war maaragtay shayga dulmiga la yiraahdo waa shay xun dawladii waxa weeye siyaad baraa ku duntay culimo waxa weeye la laayay oo waxa weeye maaragtay ummadda de xaq u cadeynayso ilaahay kitaabkiisa xambaarsanayd oo waxa weeye maaragtay ay laayeen oo waxa weeye dhib ay u geysteen waa waxyaabaha loo sababeynayay ku duntay weeyaan marka waxa weeye sheekha waxa weeye la soo daayo hadii waxa weeye wax dambi loo haystana de maxkamadda waxa weeye dadku la simeeyay waxa weeye sida maaragtay ummaduba ay ugu kala baxayso waxa weeye loogu kala baxo cidii waxa weeye eed ka sheeganaysa runtii mana filayo waxa weeye sheekhu wax eedaho weyn oo maanta de waa la wada arkaa inta waxa weeye bulshadiisu dhex jooga wax dhibaho weyn oo waxa weeye ka soo fulay oo maaragtay de kulli banaanka u soo baxaan oo aragnay waxa weeye ma jirto marka bulshada waxaan leeyahay runtii sheekha loo kaco oo arintiisa waxa weeye maaragtay si waafi ah looga hadlo xukuumadana waxaan ugu baaqayaa insha Allah war sheekha waxa weeye culimada ixtiraama oo ka dambeeya وكوي دينته إلهي سبحانه وتعالى يكتابكيسا وحوي مارك حنبارسنا وكوي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالشدة وحوي يوسو قد بنيي دي وحوي هاللغو احترامه وحوي مارك حقا حنبارسين يكتابك إلهي هاللغو احترامه يان لبهدلين مربا وحوي مارك يان لتشيدين علماء وحوي أرنتها مجيان بان لا هاي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد